daawada muuqaalkan waxaan doonayaa inaan kugu soo tabiyo taariikhdii dahabiga ahayd ee aadka u cajiibka badneyd ee sheekhana Sheekh Abikar Cali Kadiil ayaan doonayaa halkan inaan kugu soo tabiyo si taariikhdan ay u gaarto bulsho fara badan like sar muuqaalka siina share garee commentina ugu soo duceeno sheekh in Ilaahay uu naxariisto Sheekh Abikar Cali Kadiil Gaabo ayaa la yiraahdaa magaciisa oo saddexan waxa uu ku dhashay baadiyaha magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe sanadkii 1947 isla deegaankaas baadiyaha ah ayaa sheekh laga geeyay dugsi Qur'aan markii uu Qur'aanka dhameeyay ayuu xifdinta Qur'aanka Kariimka u aaday gobolka Baay oo caan ku ahaa in loo raadsado Qur'aanka duleedka degmada Baydhabo ayaa lagu bilaabay kitaabkii ugu horeeyay ee fiqiga Safiinaha magaalada Xamar ayaa uu sheekh yimid isagoo cilmi raadis ah waxa uu ku biiray xerta oo wax u akhrin jiray caalimkii caabidka ahaa ee Sheekh Xuseen Cadde inta badan funuunta islaamka ayaa waxa uu akhriyay Sheekh Xuseen Cadde Allah u naxariisto sidoo kale culimo waaweyn oo ka mid yihiin Sheekh Maxamed Sheekh Cabdi aw Umar Sheekh Maxamed Axmed Warfaa iyo Sheekh Xuseen Macallim Wehliye iyo Sheekh Abubakar Macallim ayaa ka mid ahaa culimadii sheekh wax u soo akhrisay dhammaantood waxaynu leenahay Allah u naxariisto mashaayikhdaas jilada ah sheekha isagoo daadiisu ay tahay 22 sano ayaa uu bilaabay inuu dadka cilmiga baro wana mudaris noqdo Sheekh Abikar Cali Kadiil waa caalim faqih ah si aadna loogu yaqaano looguna doonto fanniga fiqiga islaamka waa zaahid ka zuhdiyay ka tagay dhaldhalaalka adduunyada isagoo ka doortay in ku dhow 20 saacadood maalin kasta inuu xerta masjidka cilmiga ugu akhriyo una dhex joogo sheekhu waa saaxiib tawaaduc naftiisa u arka mid liidata taariikhda markii aan ka qorayay ayaa uu igu yiri culimada waaweyn u tag taariikhdooda wax ka soo qor aniga waxba ma ahiye waxna ma aqaano waa bashaash furfuran soo jiidasho leh kaaga sheekeynaya qisooyin iyo waayo hore uu sheekh u soo joogay subax hore ee maalin kasta sida uu soo gal masjidka ilaa cishihii ayuu akhrinayay cilmiga Sheekh Abikar Cali Kadiil sheekh waxa uu sanifay kutubo laakiin tawaaduc dartiis ayuu xertiisa magacyadooda ugu qoray waxa ka mid ah kutubtaas uu sheekh u dajiyay isagoo kutub kala dajin karay laakiin waxa sheekh ku badnaa akhrinta kutubta uu akhrinayay ayaa mashquulka ugu badan waqtigiisa u ahaa muciinul muhtaaj fi qawaacid al-minhaj labo thamratul qawaacid fi qawaacid al-irshaad ayaa ka mid ah kutubtii uu sheekh u qoray isla markaana xertiisa magacyadooda uu ku qoray tawaaduc darteed taariikhdan cajiibka ah waxa sheekh u tagay oo la fadhiistay la majaalisay kana soo qoray wariyaha xasan maxamed samantar cawke anigoo Siraajudiin Sheekh Maxamed Xasan Diirshaana waa idin soo tabiyay dhammaanteen isku duuban waxaanu leenahay sheekh Allah u naxariisto muuqaalka like saar si uu dad badan u gaaro siina share gareeya commentiga aan ugu duceeyno sheekha hada billahi tawfiiq assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh